Titanic maalmihii ugu dambeeyay waxa haysatay warbaahinta adduunka arrinta ku aadan in la waayay dooni yar oo ah nooca badda quusa oo ay saarnaayeen rag maalqabeen oo $100,000 ku bixiyay si ay u soo daawadaan burburka markabka caanka ah ee Titanic. Markabkan ayaa ahaa markabkii ugu weynaa ee waadamuhu sameeyo. Injineeradii sameeyay waxay sheegeen in wax kasta oo dhaca uusan qarqoomi doonin, noqon doonana mid waara, laakiin safarkiisii ugu horeeyay ee uu galaba ayuu ku noqday mid burbura, galaaftayna nolosha badi dadkii saarnaa oo gaarayay in ka badan 2,000 oo qof. Haddaba muuqaalkeenna maanta ayaynu ku eegi doonnaa qisada ka dambaysay markabka Titanic, qaabka uu u qarqoomay, iyo sidoo kaleba sheekada raggii maalqabeennada ahaa ee damacsanaa inay u daawashada tagaan. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Waaberi Media. Ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Inteenaynu gelin muuqaalkeenna ha ilaawin inaad leeg saartid, sidoo kalena aad nagu soo biirtid haddii aadan weli nagu soo biirin. Sheekada markabka Titanic ayaa ka bilaabanaysa sanadkii 1909 markii ay go'aansadeen tiro injineero ah inay hindisaan markab aan horey loo samayn mid la mid ah. Waxayna qaadatay samaynta iyo hindisidda markabkan 3 sano oo xiriir ah, waxayna u adeegsadeen samayntiisa tiknoolajiyadii xilliga ugu horumarsanayd ee laga yaqaanay adduunka. Titanic ayaa markii la dhameeyay noqday markabkii ugu weynaa abid ee waadamuhu sameeyo xilligaasi. Wuxuu qaadi karayay in ka badan 3,500 oo rakaab ah, wuxuuna ahaa sida magaalo dhammaystiran oo guuraysa, kuna diyaarsan yihiin dhammaan wax kasta oo uu qofku u baahan karo, sida meherado laga adeegto, makhaayado laga cunteeyo, goobo lagu damaashaado, xarumo caafimaad, iyo sidoo kale qolal loo hindisay sida qolalka hoteelada oo kale oo ay degayaan dadka rakaabka ah. Wuxuuna noqday markii la dhammaystiray mid ka mid ah mucjisooyinka hindiseed ee waadamuhu gaaray xilligaasi. Waxayna u bixiyeen naanayso dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen markabka aan qarqoomin. Sida caadiga ah, maraakiibta waaweyn waxaa saaran doomo yaryar oo ku filan tirada rakaab ee uu qaado, si haddii uu u cilladoobo ama qarqoomo markabku dadka lagu badbaadiyo doomahaas yaryar ee saaran. Haddaba maadaama raggii hindisay markabkan ayba aaminsanaayeen inaysan jirin wax qarqoomin kara, meeshaba way ka saareen inay doomo yaryar oo ku filan dadka saaran ay u sameeyaan. duhurnimada 10kii bishii afraad sanadkii 1912 ayuu markabkii Titanic u diyaargaroobay inuu bilowdo safarkiisii ugu horeeyay. Safarkiisu wuxuu ka bilaabanayay magaalada Southampton ee dalka Ingiriiska, wajhaduna waa magaalada New York ee dalka Mareykanka, wuxuuna sii marayaa badweynta Atlantic. Wuxuuna rakaabkii uu qaadayay safarkan gaarayay 2,200 oo qof. Dhammaan rakaabkii ayaa soo wada koray markabka, waxaana u bilowday safarkii ugu horeeyay uguna dambeeyay ee uu galo markabka Titanic. 4 maalmood ee ugu horeysay socdaalkooda ayay ku qaateen rakaabkii markabku jawi degan oo ay weheshanayeen mawjadaha badda, laakiin wax kasta waxay isbedeleen habeennimada maalintii afraad. Kabtankii waardiyaha ka hayay markabka ayaa si kadis ah meel xoogaa u jirta ku arkay badweynta dhexdeeda buur baraf ah. Kadibna kabtanadii waday markabka ayuu ku wargeliyey inay ka horeyso buur baraf ah, ayna khasab tahay inay waddada markabka beddelaan si aysan ugu dhicin. Kabtankii markabka ayaa go'aansaday inuu ka leexiyo markabka buurtii loo sheegay, laakiin leexintii uu ka leexday ayaa mid ka mid ah dhinacyadii markabka wuxuu ku dhacay qayb ka mid ah buurtii barafka ahayd, taasi oo keentay inuu dalool ku samaysmo markabkii, biyihiina ay bilaabaan inay si xawli ah u soo galaan gudaha markabka. 2 saacadood iyo 40 daqiiqo gudahood ayuu markabkii Titanic ee raggii sameeyey ay ku naanayseen markabka aan qarqoomin noqday mid qarqooma oo ay biyaha badweyntu laqaan. Rakaabkii saarnaa oo sida aynu soo sheegnay ka badnaa 2,000 oo qof ayay ka badbaadeen 700 oo qof oo keliya, halka 1,500 oo qof ay noqdeen kuwo ku qarqoomay biyihii badweynta iyo kuwo u dhintay qabowgii xaddhaafka ahaa ee ay lahayd badweynta Atlantiga. 18kii bishan lixaad ee aynu ku jirno ayaa dooni yar oo ah nooca badda hoosteeda quusa oo loo yaqaanay Titan oo ay saarnaayeen 5 qof oo maalqabeenno ah la waayay meel ay jaaniya cirib dhigtay. doontan ayay raggan 5 ah uu midkiiba bixiyey $250,000 oo dollar, wuxuuna yoolkoodu ahaa inay soo daawadaan burburka markabka Titanic,
laakiin saacad iyo 45 daqiiqo markii ay badda hoos u galeen waxa go'ay xiriirkii iyo isgaarsiintii lagala socday waxaana bilowday howlgal ballaaran oo lagu baadigoobayay 5 nin mid ka mida wuxuu ahaa ninkii maamulaha ka ahaa shirkadda samaysay doontan yar oo la yiraahdo Ocean Gate baaritaan qaatay 80 saacadood kadib waxaa la helay qayb ka mid ah burburkii doontan taasoo ka dhigtay raggii saarnaa kuwo iyaguna mara masiirkii ay mareen dadkii saarnaa markabka Titanic. burburka markabka Titanic ayaa ku jira gunta hoose ee badweynta Atlantic-ga waxaana lagu qiyaasaa meesha uu ku jiro inay tahay ku dhowaad 4,000 oo mitir gunta hoose ee badweynta.